waxaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdi ka socda dawladda Ingiriiska oo hogaaminayay Rich Sharon oo ah xogayaha koowaad ee safaaradda Ingiriiska iyo sidoo kale saraakiil ka socota ciidanka Ingiriiska waxayna kulan gaar ah la qaateen kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka amniga ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Maxamed Xasan Elay iyo qaar ka mid ah wasiirada sidoo kale madaxda ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana laga hadlayay xilliga kala guurka ah iyo sidii kala guurka xilligeeda baleenka ama qorshaha loo dejin lahaa sidoo kale ciidamada isku dhafka ah sida loo sameyn lahaa ciidanka isku dhafka ah taasi oo in badan laga hadlay ciidanka isku dhafka ah madaxweynahana talooyin kusimaha madaxweynahana talooyin badan oo ka jeediyay oo ahayd in ciidanka isku dhafaya qaabka ugu wanaagsan la isku dhafo waan la isku afgartay intaas oo dhan waxayna daba socdeen shirar in badan ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale Ingiriiska sidoo kale magaalada Baydhabo shirkii ugu dambeeyay oo ka dhacay dalka aan raadiyay Yurub oo ka dhacay marka intaas oo dhan shirarka ahaa ayuu daba socday shirkaana wuxuuna ahaa shir guul weyn oo ku soo hoynaya haduu ila raada ugu horeyna waxa laga hadlay muhiimadda koowaadna la saari doono wadada xiriiraysa Muqdisho iyo Baydhabo marka guud ahaan shirka wuxuu ahaa waxaana looga hadlayay traditional baleenka oo xilliga kala guurka ah iyo integration ciidankan ama qorshahan wuxuu ahaa qorshe hore u soo socday qorshe maanta ama shalay bilowda ma ahayn qorshe in badan soo qaatay sanka kugu sheegay Ingiriiska Muqdisho Baydhabo iyo sidoo kale Yurub hadana qayb kamid ah lagu qabtay marka waa inta buu ahaa shirka tiibay daba socotaa diiwaangelinta ciidamada gaarka ah ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee haddana socda maantaba wuxuu ka bilowday magaalada Dinsor ama degmada Dinsor ee gobolka Bay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya marka wuxuu ahaan doonaa isku dhafka barnaamij qorshe hore u soo socday haddana la dhameystiri doono xilliga ugu wanaagsanaana uu yahay oo la dhameystira sababtoo ah ciidamada gaarka ah dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wax badan bay qabteen waa ciidan booliis gaar ah haddii la rabo waxa lagu dari karaa booliiska haddii la rabana waxa lagu dari karaa ciidamada xoogga dalka marka isku dhafka waxay ka wada imaanayaan dhammaan dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ciidan isku dhaf ah oo guud ahaan ka wada shaqeyn doona guud ahaan Soomaaliya Ras Caseer iyo Ras Kamboni inta u dhaxeeya haduu ilaahay ciidamada gaarka ah ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waa ciidanka hadda la diiwaangelin ama diiwaangelinta ku socota sababtoo ah ciidanka SNA ama ciidanka xoogga dalka ciidan hore u diiwaan gashanaa buu ahaa balse ciidanka hadda la rabo in la diiwaangeliyo si loo integrationka loo sameeyo ama isku dhafka in ciidanka la diiwaangeliyo ciidanka ay hayaan dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya si loogu biiriyo ciidanka xoogga ama ciidan booliis laga dhigi kara labada loo isticmaali kara oo maasantii